السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا جو جنرال قادرة إيه channel كني بالخير تي في مركو قرسين تينا عشر كينو جودة قلين بليز هداد كو عصوبتي channel كيغا subscribe like share and comment thank you. إن هادينو كل عشر كينا وحينو كغا هادلينا عاوا lecture بينو قادرينا و lesson and lesson كنا قادرينا وحكو سابسين هي the structure of IPv4 address. waxa uu ka warramayaa IP addressyada qaab dhismeedka ay u dhisan yihiin ee aynu ku baranno kombiyuutarada loo isticmaalo ama network loo isticmaalo. Ma jiro kombiyuutar ku shaqeyn kara bilaa IP address. Marka halkan waxaanu ku baraynaa IP address sida ku shaqeeyaan, nooc yahay iyo sifahay leeyihiin iyo wax loo yaqaan iyo waxyaabo ay qabtaan iyo sida loo isticmaalo. Okay, IPv address waxa weeye wax uu ka kooban yahay 32 bit. halkan waa ku aragtaan 32 bit buu ka kooban yahay, waa 32 bits number weeye kuwaasoo loo yaqaano IP address. Number kaasoo it's a number which assigned to each device is connected to the computer networks which uses the IP address for communication. waxa weeye IP addressku waa number aaladu ay ku dhaqaaqayso oo aalad kasta computer ku xidhan ay ku shaqeynayso la'aantiina aanay soconin oo communication ku shaqeynayso. taas waa taa. IP addressku normally waxa loo qoraa waa decimal digit xaggan aynu ku arki doonaa waxa uu ka kooban yahay 8 bit buu ka kooban yahay. each 8 bit has a byte. markaasi halkan aan sawirkeenu ku arki doonaa macnaha waa inaad fahanto inuu 32 bit yahay waa 4 octet. 4 octet buu ka kooban yahay. 4 octet waxay u qaybsamaan min 8 iyo 32 saas ku kooban. sawirkan aan ku arki doonaa waa kan. okay, hadaba IP address waa kan aynu hadda arkayno waa 4 qaybood 1 iyo 2 3 iyo 4. wuxuu ka kooban yahay 4 octet. octet waxa loo yaqaanaa intaaba waa octet. 172 waa octet. dot waa inaad markasta dot isticmaashaa. waa tii lagu yiri 4 dot baa waxa ku jira dots baa loo isticmaalay. waa dot iyo dot iyo dot. marka intaas octet baa la yiraahdaa 172. intana dot weeye, kana waxa weeye waa octet, kana waa dot, kana waa octet, kana waa dot, kana waa octet. marka 4 meelood oo misideed waa 32 kilo loo sii sheegay in page ka hore ku aragno waa. haddaba qaybtanu any number bay noqon kartaa. any number kana any number buu noqon karaa. kana any number kana any number. haddaba kani kama badnaan karo 255. kama badnaan karo numberka ugu dambeeya. wax kasta uu noqon karaa laakiin 255 ma dhaafi karo. kana 0 ma dhaafi karo. 0 inta u dhaxaysa ilaa 55 weeye. afarta isdaba taala waa kan waa number state ku koobay. kan sidoo state ugu koobay gadaal baynu cashar ka qaadan doonaa. haddaba aad waa inaad fahanto number kasta oo IP address wuxuu ka kooban yahay qaybta koobaad, qaybta labaad, qaybta saddexaad iyo qaybta afraad. lambarka ugu dambeeya 55 ma dhaafi karo. lambarka ugu horeeyana 0 waa inuu noqdo ilaa iyo wixii ku dhamaada 55 oo xagga dambe ah. numberkan nooc doon noqon kara, numberka nooc doon noqon kara, laakiin ma dhaafi karo 55 isaguna. marka 4 octet buu qaybtaas ka koobantay. cashar qaybta kale inuu galeynaa. IP addressku wuxuu u qaybsamaa 5 qaybood. 5 qaybood waxa la yiraahdaa halkan ku arkaynaa the IPv4 address has 5 classes of IP address. 5 class ayuu leeyahay ama 5 qaybood. waxa la yiraahdaa class A, class B, class C, class D, class E. haddaba intayna wax kale buu galin class E iyo class D laguma isticmaalo imka adduunka kombiyuutarada imka taala ama la isticmaalo. waxa lagu isticmaalo oo kaliya D waxa loo isticmaalaa multicast waxa la yiraahdaa. gadaal baynu ka baran doonaa 10 qayb dambu ku jiro ayaan idin siin doonaa. laakiin asalanba D looma isticmaalo network hadda jira oo waxa lagu isticmaalaa multicast. E waxa lagu isticmaalaa waxyaabaha experimentiga ama tijaabooyinka. iyadana halkan ka saar waxa la isticmaalo kaliya waa A, B and C. waliba inta badan C ayaa public ayaa meel kasta lagu isticmaalaa shirkadaha. okay, A haddaba hadaad aragto class A wuxuu ka bilaabmaa 1 ilaa 126. 127 uu gaadhay laakiin 127
waxaa loo isticmaalay loopback wayna arki doonaa laakiin 1 ilaa 126 buu ka bilaabmaa numberkiisu waa inta u dhaxaysa yacni nooc doon noqon karaa wuxuu noqon karaa like wuxuu noqon karaa like 10.0 oo kale markaas class wuxuu ka bilaabaa waan idin ku celinayaa 1 ilaa 126 127 waan look back oo waan arki doonaa okay subnet maskigiisu waa subnet maskigiisu halkeen lambarkii laababkiina soo sameeyay waxay ku sameeyeen 255.255.0 kan isaga waxa weeye 255.0.0.0 waayo isagu waa class A buu ka bilaabmaa because subnet maskigiisu waa inta kale waa kaasoo kaliya on inta kale waa off markaasi qaacidada lagu helo waxa weeye inta badan waxa uu ku siinayaa 2 power 27 2 power 224 oo laga jaray -24 laga jaray -2 marka wuxuu ku siinayaa 16,776,274 marka wuxuu siinayaa 16,777,214 ayuu ku siinayaa oo addresses ayuu ku siinayaa ka kooban marka waa class A class B haddaynu u nimaadno wuxuu ka bilaabmaa 128 ilaa iyo 191 subnet maskigiisuna waxa weeye iska bara horta adigu iminka subnet maskigu wuxuu yahay iyo IP address wuxuu yahay gadaal baad ka fahmi markaad isticmaasho 128 wuxuu ka bilaabmaa class B ilaa wuxuu ku dhamaadaa 191 subnet maskigiisu waxa weeye 255.255.0.0 macnii labadan waa on kuwana waa off halka waxaad ka garanaysaa numberku isticmaalaya number of networks ka isticmaalaya waxa weeye waa 65,534 qaacidada lagu helayaana waa 2 power 216 minus 2 oo u dhiganta oo noqonaysa markaas 65,534 aynu nimaadna class C waa class D iyo class C halkan waa tawaad aragtaan waa reserved for multicast oo class D lama isticmaalo kan experimental used for research inuu loo isticmaalo waa tan sheegay C bin haduu u gudbinaa C wuxuu ka bilaabmaa 192 ilaa iyo 223 markaasi subnet maskigiisa waa 255.255.255.0 waxaanu ku siin karaa number of addresseska ama hostable usable ka aduu isticmaali kartaa waxa weeye 254 oo ay noqonayso qaacidada lagu helo ana halkan ay ku taalo 2 power 26 minus 2 halka waad aragtaa 2 power 28 minus 2 qaacidada lagu helo qaacidada xafida 2 power 28 kan kalena waa 2 power 216 kan kalena waa 2 power 224 mid walba minus 2 baa laga jaraya minus 2 ga laga jaraya waxa weeye IP address kasta IP addresska koobaad lama isticmaalayo ka ugu dambeeyana lama isticmaalayo labadaas bahilaawina in qaacidadu ay tahay qaacidadu halka ay ku qorantay mid walba iyo in mid walba laga jarayo markaad labadii tiro aad matalo kala kan 2 power 28 battery markay tiro ku soo baxdo oo ay ku soo baxdo 256 minus 2 baa rosa marka halkaas IP address ka horse waa laga jarayaa oo waa tuugan halku ka yimi weeye iyo ka ugu dambeeya midna la isticmaalayo ka ugu dambeeyana waa broadcast oo lama isticmaalo midna waa broadcast oo ka ugu dambeeya lama isticmaalo ka ugu horeeyana lama isticmaalo qaybtan inuu gudbaynaa okay waa kan imka numberkan 192.168.1.152 qaybta koobaad waxa la yiraahdaa first hosted wuxuu ka bilaabmaa 192 waa 8 banine baalku markiisa hore waa 8 numberkan 8 ku kooban yahay laakiin 192 waa tiraham machine ugu yaala waa IP addresski laakiin waa 4 octet ka koobaad waa ka octet ka labaadna waa kan octet saddexaad waa ka afraad marka la isugu yeeyo 8 waa 32
marka labadaas waxa la isku yiraahdaa network oo waa kan number of networks baa lagu yiri waa number of networks waa 2 waa kan iyo kan numberkan iyo numberkan ayaa la isku yiraahdaa network bits labadan waxa la isku yiraahdaa host bits oo host ahaan baa loo isticmaalaa hadhow class qaybta 10ka labaad ee next week baynu ku baran doonaa ama week ku xigan ku baran doonaa insha Allah because casharadeenna waa continue qaybtaasina halkaas ay ku dhamaatay laakiin si qofku inuu fahmo IP address kan imika waa classy waxaanu ka bilaabaa 192.168.1.152 marka waa la waxa weeye afarta qaybood weeye sida loo isticmaalayana waynu aragnay laabkeenu ku aragnay haddaad xaraf ka tagto ama aad wan ka tagto kuma shaqeynaya laabkaagu sida ula soco in qaybta waxa la labada qaybood waxa la isku yiraahdaa network bits labadana waxa la isku yiraahdaa host bits qaybtan kale inuu gudbina inaad just fahanto imika way gadaal bad ka fahmi doontaa casharka ku saxnaato qaybta kale inuu sii gudbina qaybta kale waxa weeye IP address ku wuxuu qaybsamaa private IP and public IP marka there are two types of IP4 addresses IP address adduunka jira labaas bay qaybsamaan waa IP private IP iyo public IP private IP gu waxa loo isticmaalaa LAN local area network loo isticmaalaa ayaa loo isticmaalaa in public IP gana waxa loo isticmaalaa public network like internet ko kale iyo everywhere not recognized over the internet barrier private cars laguma isticmaalo over the internet waayo waa private gebigiisuba waa private IP public IP ga recognized over the internet waa kuwan internet ku isticmaala ama guriga ku yaala ama shirkad ku shaqeyso ama anywhere ama mobilka gacanta ku hayso ku shaqeynaya assigned by the LAN administrator waxa assign gareeya private IP ga qof assigned oo loo assign gareeya like administrator or network administrator database wixii uu qofku administrator baadgu ayuu qabta system admin ama administrator network ama system administrator ayaa assign gareeya kan kale waxa assign gareeya assigned by the service provider sida mobilka oo kale waxa soo waxaan ku dhahdaa ay qaabilsan oo data ku siinaya service provider shirkadu doonto haato ama Telesom haato ama Rodmo haato ama Samtal haato ama qurbaha TNT noocay doonto haato shirkaday doonto haato Rogers haato anywhere haato adduunka config haato that's within joogto everywhere adduunka meeshaad ka joogto in LAN baa lagu isticmaalaa marka qaybtan kana waxa lagu isticmaalaa globally private ka waa LAN local area lagu isticmaalaa kana waa globally waa dunida oo dhan isticmaasho public kan waa free of charge marka private kan kale waxa weeye it gonna cost money for you alka waxa lagu leeyahay cost associated with the use of public IP marka isticmaalayso lacag cost gareynaya okay halka waxaanu marka iyadana inta private ka iyo public kala fahantaan baan doonayay gadaalna waan ku baran doonaa cashar kale aan ku qaadan doonaa qaybtii ugu dambeeyay baynu galeynaa casharka oo ah addresska waxa loo yaqaan address scheme waxa weeye unicast macnaheedu waxa weeye waa unicast waa kind of address but is 1 to 1 waxa loo isticmaalaa computer to computer dad maqasho unicast waxa weeye computer data oo dirayo computer kale oo dirayo waa 1 to 1 de laba computer baa isticmaalaya multicast hadaad maqasho waa 1 to many waa computer la xiriiraya soo marka datadiisa space ku ilaashanaya any data oo dirayo nooc doonaba ha broadcast waa 1 to all waa broadcast uu sameeynaya wuxuu broadcast maxaa ku broadcast kareynaya uu baahinaya ma garanaysaa datadii uu baahinaya dhammaan computerada dan shabakada network ku xiriibay ay ku base garaysantahay mar walba broadcast-ka way baran doonaa multicast-kana way sii dhexgeliyeen unicast-ka way sii dhexgeliyeen laakiin just imkiina fahanto una saddexda unicast oo ah 1 to 1 iyo multicast oo ah 1 to many broadcast oo ah 1 to all ina intaas uu fahanto way qaybteena ugu dambaysa casharkeena waxa weeye static IP address and dynamic IP address waa aragteen oo labun buu qaybsamaa address ku xagana static IP address iyo dynamic static waa maxay is manually waa computerka dul tagto oo computerku maadaama computerku aan ku shaqeyn karin la'aantii aan ku shaqeyn karin IP address waa inta dul tagto oo numberka geliso sidii numberka imka laabka aan ku sameeyay wiki hore ama xalay ama doraatole
magarasa ama dib aynu ugu samayn doonaa amaba computerkaaga intaad dul tagto oo aad aragto numberkaad gelinayso waad arkaysaa markaad tagto qaabka loo geliyana waan idiin sharxi doonaa horena waa aragteen oo waa kan laabkaan dugsi mar dambana waan siin doonaa su'aalahan haddaad geliso 192.168.10.10 dee adaa dultigo computerkii geliyay marka lagu leeyahay manually baad statica IP addresska u gelinaysaana waxa weeye waxaad gelinaysaa subnet maskiga sida 255.255.255.0 haddana waxaad gelinaysaa default gateway-gii oo ah 192.168.10.1 oo kale saas oo kale tusaalahan haddii lagu dhaha dynamic IP address muxuu yahay waa marka uu ka helayo DHCP-ga tusaalahaan aan la laabkayn tus doono meel yar haddaad kili garayso maxaan ku dhahay halkaa ayaad ka helaysaa markaa oo isaga ayaa toos kugu gudbinaya oo maaha markaa manually waa automatically qaybtaasuna waa qaybtaas ayaa noogu dambeynaysa cashirkan xigana waxaynu ku qaadan doonaa laabkiisii oo waxaynu sii badin doonaa si kombiyuutarada aan isugu xidhanayo qaabka la isugu xidhayo oo kala duwan haddaad channelkay ku cusubtay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay please subscribe like and share insha allahu tacaala halkaas ayaynu casharada ka wadi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hopefully you will love this lesson insha allahu tacaala wasalaamu calaykum